gacan ku dhiglihii dilka u geystay allaha u naxariistay cabdulaahi axmed khayre ayaa maanta la soo taagay maxkamad ku taala xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. maxkamadaynta Vizila Mabigizila oo bilaabatay 8 subaxnimo ayaa soo gabagabowday 3 galabnimo ee maanta waxa uu qaaligu ku dhawaaqay in gacan ku dhiglaha uu sharcigu siinayo in uu bixiyo lacag ganaaxa kadibna xabsiga laga sii daayo maadaama dambiyo culus oo uusan horay u galin balse maxkamadaynta Vizila ay socon doonto tani inta xukun laga gaarayo. qaar ka mid ah jaaliyada iyo ehelkii marxuum Cabdulaahi oo maxkamadda goobjoog ahaa isla markaana doonayay in ciqaab culus la marsiiyo dambiilaha ayaa markii ay maxkamaddu soo gabagabowday waxa ay la hadleen TV-ga Universal oo ka mid ahaa goobjoogayaasha halkaasi. waxaad maanta aan tagnay maxkamadda magaalada Belville oo la soo saaray dambiilihii 2 isbuuc ka hor dilku u geystay muwaadinkii Soomaaliyeed Cabdulaahi Axmed Khayre. waxaa dhacday in maanta ninkii si bayl loo ogolaaday inuu banaanka ku tago ma ahan inay maxkamadda dhamaatay. maanta waxaan u istaagnay maxkamaddii gacan ku dhiglihii geystay dilka walow aan maxkamadda ku qancin oo qof dambiilaha la sii daayay haddana sharciga jiro waddanka ma khilaafi karno laakiin haddaad fiiriso sharciyadeena iyo dhaqankeena qof dambiilaha lama sii dayn jirin marka meesha aad joogto waa inaad macnaha qaadataa sharcigeeda marka waana ka xunnahay sii deyntaas walow aysan maxkamaddu dhammaan waxaana rajayn doonaa in uu mutaysan doono ciqaabtii uu mudnaa. waxaa kaloon dhihi karnaa waa arrin tiraanyaleel marka si loo fiiriyo haddana ma dhammaanin weli annagana kama daalayno ilaa aan go'aanka ugu dambeeya walow maanta ay ahayd maalintii ugu horreysay oo maxkamadda uu ka muuqday ninka dambiilaha ah runtii waxaad og tahay dambiyada waddanka ka dhacay u kala gedisan yihiin maadaama dambiga maanta loo soo istaajiyo uu ahay dambi dil ah oo u geystay muwaadin Soomaali ah 2 isbuuc ka hor maxkamaddu go'aanadii ugu dambeeyay weli way dhiman yihiin laakiin tan waxay ahayd mid hordhaca runtii waxaa jirta muwaadiniintu iyo qof walba waddankan ku nool xaq uu leeyahay hadduu dhib geysto marka maxkamaddu iyo sharciga ayaa wuxuu u ogolaaday inuu si ku meel gaara oo banaanka ku joogo asagoo waliba iibsaday waqtiga uu banaanka ku joogay. si kastaba ha ahaatee maxkamadaynta dambiilahani ayaa lagu wadaa inay dib u bilaabato 26 May ee fooda inagu soo haysa. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.